السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وأنا ونعكسن تعوضيا أصحابتي لوان السلام صاحبكم عبد الرحمن بولاد waxaan maanta rabaynaa halkan kaga hadlo muuqaalkaygan waxa weeye arrin muddooyinkii u dambeeyay kusoo kordhay Somaliland maalintii shalay ahayd waxaa magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay nin sheeganaya inuu yahay suldaan guud ee Garxajis oo lagu magacaabo Cadde Gude kaasoo ah qaran dumis aan ku hadlin af suldaan leeyahay hadallada iyo ilaahdu lahaa ma ahayn qaar uu ku hadlo nin suldaani ama nin madax dhaqameed anigu Muuse Biixi ma taageersanin ma difaacayo laakiin dadku iyo bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay kala gartaan qarannimada iyo muuse waa qof shakhsiya kursiga waa la doortay cod buu ku yimi amarkana uu tegaya laakiin qarannimada Somaliland sidaynu wada ognahay dalku wuxuu ku jiraa xaalado dagaal oo ka socda laascaanood kaasoo dad badan oo cadowga Somaliland ah kana xun dhaqdhaqaaqa iyo horumarka Somaliland ay ku tallaabsatay 30 sano u dambeeyay weeraro siyaasadaysan ku soo qaaday daaroodkii ku sugnaa Itoobiya kii ku sugnaa kiilka Kenya kii ku sugnaa Kismaayo iyo kii Puntland ku sugnaa waxay isu soo raaceen inay burburiyaan qarannimada iyo jiritaanka iyo horumarka Somaliland marka bulshada Somaliland ama Garxajis ha noqoto ama habar wal ha noqoto ama habar jecel ha noqoto waxaa loo baahan yahay in cadowga meel looga soo wada jeedo oo dalka la difaaco laakiin maanta dhexdeena inay ka dhex bilaabanto oo qof nin sultaan sheeganaya uu dad abaabula ama hadallo nacayba waa xaalad keeni kara ka dhex abuuro looma baahna Garxajis waa reer Somaliland dalkana wax ku leh rajana ka qaba marka bulshada Garxajis waxaan ku baaqayaa dadka magaciina iyo sumcadiina dilaya in ay iska dhex qabataan qarannimada Somaliland iyo Muuse Biixina waa la kala saaraa qarannimada ka weyn Muuse anigu waxaan u codeeyay xisbiga wadani وما العظيم موسى لكن قرنمada Somaliland diiwaan taageersana nabadgelyada iyo kala dambeynta iyo horumarka Somaliland waan garab taagna ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku sugan jiidda hore dagaalka waxay nooga baahan yihiin hambalyo iyo isgarab taagid iyo taageero nimanka jiidda hore cadowga difaacaya arsaasta feeraha u dhigtay in marba dhagahooda lagu duuliyo hadal yar oo nacayb ah oo waxyeello u dhimaya ma habboon marka waan ciidamada qaranka la garab taaga dalka wixii cadow ku ah laga difaaca xisbiga wadani waxaan u sheegayaa hadallada nacaybka ay ku hadlayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Garxajis waxay sababaysaa in taageerayaal badan oo xisbiga ah ay dib uga laabtaan taageeridii aniga ka mid ah sanadkii hore taageersanaa wadani laakiin amka sidaan markaad eegtid siyaasadiisa iyo beesha hogaaminaysa xisbiga uqaasheedu si u hadlayso waxaan dib uga laabtay taageerideedii mana taageeri doono sababtoo ah waa qaran dumis cid kastoo qaran dumisana inaan duco siino taageerno ma habboon bulshada Somaliland gudaha iyo dibadda waxaan ku baaqayaa inay dalkooda difaacdaan cadowga meel uga soo jeedaan weerarka daaroodiyeysan ee lagu soo qaaday gobolka Sool waxa ay gacan ka midoobaan ciidanka qaranka wana hambalyeynaya difaaca
intii ku geeriyootay dagaalka laascaanood ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay caafimaad saraacana ha siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.